السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور وهذا channel كنا سويال كميديا قضبة نووين ما انتو حاي كليهين ما هذه قولة والشاعة كقاضي عرم فشلنا يسرد مع كينيا أن دبرو ديغو كيسس كايسي شيء فدا علماء الإسلام كوكو باقاي إن لغهور تغو قرشا أي دمعسان تا إسرائيل قضبة أصوفا فاسنا يكو مقل دونتان magacaygu waa maslaxa masiir farnadan cusub tahay channel-kan subscribe noo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinada ugu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. dowladda Kenya ayaa mar kale isku dayaysa in dib loo dhigo dhageysiga kiisaska badda Soomaaliya ee hor yaalla maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ sida ku cad dokumenti cusub oo ay dirtay. arrintan ayaa khilaaf hor leh ka dhex abuuraysa labada dal iyadoo Soomaaliya ay si xoogan uga hortimid damaca cusub ee Kenya ay uga baxayso inay cadaaladda wajahdo. sida laga soo xigtay Mahdi waxaa jira kiisas dhowr ah oo ICJ ku dhageysatay habka fogaan aragga ee dunida way isticmaalayso. hadda Mahdi ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dhammaystiran ka bixiyo cadaadiska ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay saarayso dhigeeda Kenya. gal dacwadeedka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo bilowday bishii Agoosto ee sanadii 2014 waxaana dhinacyada isku hayaan goob hodan ku ah kheyraad oo ay ku taalo xadka labada wadan. maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo ay saaciso go'aankeeda ku aadan in kiiska uu ku dhacayo waqtigiisa iyo in kale kaasi oo ah 8 ilaa 12 bisha Juun. maxkamadda ICJ ayaa 5 Sebtembar 2019 ogolaatay codsi ka yimid Kenya oo ahaa in dib loo dhigo kiiskaasi. waxaan xilligaas ay ballan qaaday in mar kale kiiskaasi dib loo dhigi doonin. ururka caalamiga ah midowga culimada muslimiinta ee International Union for Muslim Schools ayaa maanta mar kale ku baaqay in dhammaan dunida iyo dalalka islaamka ay u istaagaan inay ka hortagaan qorshaha ay Israa'iil ku goosanayso qayb ka mid ah dhulka Falastiin. xogayaha guud ee ururka muslimiinta ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay ka faa'iideysanayso ku sii jeedka caalamka ee cudurka coronavirus iyo taageerada maamulka Trump sida ugu dhaqaaqo siyaasadaheeda gargaarka ku dhigtay ka dhanka Falastiiniyiinta. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiisyada wada shaqaynta ee kala dhaxeeya Israa'iil haddii ay ku dhaqaaqdo qorshahan. taasi oo wiiqi doonta dadaalada lagu raadinayo xalka labada dal oo ay kala yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil. qorshaha daanta galbeed ayaa qayb ka mid ah waxa lagu yeeray heshiiskii qarniga oo 28 Janaayo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. qorshahan ayaa Qudus u aqoonsanaya caasimadda aan la kala qaybin ee Israa'iil wuxuuna Israa'iil siinayaa madax banaanida qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed. Falastiiniyiinta iyo ururada kale Islaamka ayaa si weyn uga hor yimid qorshahan. gudantaas ayaa kusoo gabagabeynayna wararkeena warkan warkayga inta kulmi doona waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.